السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada khyaare isku soo noqod wanaagsan. maanta marka waxaan bilaabayaa koorsada Windows-ka insha Allah. koorsada Windows waxay noo noqon doontaa koorso waqti badan inoo socota isla markaana fiidiyo fara badan oo aan ka hadlay Windows-ka casharo fara badan waan soo gali doonaa oo aan soo doobi doonaa. So today marka waa Windows operating system. طبعا هذه الحين يصير برشة كمبيوترك قيبيس كل دوون وحاجة كورسين فربضان أو عين هينو أو إسلام كان بقول كي بقول رقيسة وأنا دني أتيسر إسلام كان له لابس فربضان أما practice فربضان. So today مركا ومالكي Windows operating system. So Windows operating system مركا مغشيد هذه يعني هو أصلا برتيبة ama hore u soo maqashay Windows operating system waxa laga yaabaa inaad xasuusatid. So marka koorsadan ayaad ku baran doontaa aasaaska Windows-ka ilaa heer sare waana af Soomaali. dabcan waxa laga yaabaa inaad aragtid koorsooyin fara badan oo ku baxaya luqada qalaad taasina ay keento in yani si fiican aad u fahmo. So marka koorsada Windows-ka basic ilaa intermediate waa $7 bishii. So marka koorsada marka waxaad ku baran doontaa ayaa waxay tahay qeexitaanka Windows operating system. waa maxay Windows operating system ama operating system wuxuu yahay noocyada operating system-yada Windows operating system laftirkiisa wuxuu yahay iyo desktop-ka Windows operating system. Operating system is a system software that acts as an interface between the user, the application software, and the computer hardware. So marka operating system waa system software ama nidaam software ah kaas oo u dhaxeeya isticmaalaha iyo applicationska ama fileska ku jira computerka iyo hardwareka computerka. qalabka computerka hardwareka ee la taaban karo ee loo jeedo iyo isticmaalaha iyo systemka ku jira computerka ayuu u dhaxeeyaa softwareka ama operating systemka. marka shaqada uu qabto operating systemka ayaa waxay tahay in uu ogolaado dadka isticmaalaya computerka ama userka ama qofka isticmaalaya in uu maamulo computerka hardwarekiisa. Okay, so marka computerka hardwareka ama hardwareka uu leeyahay computerka inaad maamushid oo yani keyboardka inaad xarf aad ku qortid xarfihi ay ku soo baxaan waxaasoo dhan waxa management gareynaya ama ku sahlaya ama yani ku ogolaanaya waa operating systemka loona soo gaabiyo OS. noocyada operating system-yada waxaa jira ilaa 3 nooc oo operating system ah. so marka waxaa jira marka Microsoft Windows oo lagu talagalay PC ama personal computerska. sidoo kale waxaa jira Mac operating system la yiraahdo oo lagu talagalay computerada Macintosh loo yaqaano iyo Linux. So marka next ama casharka saddexaad ayaa wuxuu noqonayaa markaas desktop. So marka desktop waa muuqaalka ama waxa ugu horeeya ee aad arki kartid marka aad soo daasid computerka. Okay, so marka desktop marka maxaan ka baranaynaa desktop waa maxaan ku baranaynaa waxaad baranaysaa sida background colorka loo bedelo, sida shaashada fara badan loo abuurto loona delete gareeyo, sida loo qariyo loona soo saaro files, sida files loo wada doorto ama qayb kamid ah ama application iska dheh sida files ama file shaashada looga delete gareeyo, sida file magaca looga bedelo. so marka kuwaana marka waa basic desktopka computer ku saabsan. Okay, so marka let's start. so marka desktopka marka aad soo daartid computerkaaga waxa uu horeeyo ku soo baxay waa shaashada noocan kala waxaana loo yaqaanaa desktop. Okay, so marka waa inaad mid ogaataa marka desktopka computerka qaybta banaan oo aysan applicationada ama fileskan aysan oolin ayaa waxaa loo yaqaan oo ah qaybtan banaan ay saxo oolin waxaa loo yaqaanaa blank desktop. yani waa meel banaan waa blank. so marka blank maxay ku qaban kartaa meesha banaan waxay ku sahlaysaa in aad right click ku dirtid meesha banaan kadibna ay ku soo baxaan marka applicationada ama menuskan ama radan waxyaabaha inay ku soo baxaan ay ku sahlaysaa. so marka ugu horeeya marka waxaan sameynaynaa in background colorka aan ka bedelno.
so marka si aan background color ka aan uga bedelno right click ayaan ku dulsiinaa meeshan blank desktop ka ah then kadib waxaan sii tegaynaa markaas personalize oo ah amarka ugu dambeeya so personalize marka kusoo baxda marka meeshaan waxaa ka bedeli kartaa background color-ka oo ah background meeshaan ku qoran soo ma jeedid background so marka background waa maxay yani waa darbiga dambe ee shaashada color-ka uu leeyahay so marka ma picture baa ku bedeleysaa oo sawir baa ka dhigaysaa oo sawir miyaa saaraysaa sawiradan oo kale basic ah ama kuwa aad soo degsatay oo kale mise waxaa saaraysaa sawir color macnaha qalalan oo color macnaha soo jaalo oo kale color noocaas oo kale haddii aad rabtid adig ayaa samaysan kara colorka mise waxaa saaraysaa marka slide show oo ah hadda aniga midkii saaran colorra markaa isbedelaya so marka colorrada marka slide showgaasi aan u saarto haddii aan u baahanahay waxaan kaloo tegi karaa themes qaybta ah so marka colorrada fara badan baa haystaa so marka halkan waa folder ama folder yani waxa ku jira file fara badan oo pictures ah so marka waxa ku jira 12 image kan la xigto marka adara markana saarana ama kana saarana so waa themes marka xaga marka waxa ku jira hadda 12 tusaale ahaan marka 12 ka image ku jira marka uu mid saarnaado hal daqiiqo yani dabcan waqtiga adiga ayaa bedeli kartid so hal daqiiqo marka uu saarnaado uu yaraan kadibna uu isbedelay waxa imaanaya hadana sawir kale so marka taas waa habka aad uga bedeli kartid background color-ka so hadda ani themes kan waa bedelaya kana ku bedelinaya tusaale ahaan then marka halkan waxaa ugu jeedaa waa in isbedeli themeskii computerka ama background color so meeshaan waxaa ka bedeli kartaa marka lock screen-ka so marka lock screen computerka marka aad saa usoo daartid lock screen-ka kuusoo baxaya ayaa wuxuu yahay marka midkan oo kale so marka haddii adigu aad rabtid waa bedeli kartaa pictures baa ka dhigin kartaa slideshow baa ka dhigin kartaa so marka pictures kan waa kuwa basic ah ama asaas ah oo ay ku siinayso shirkadda Microsoft Windows so pictures kan marka waa pictures ay ku siinayso shirkadda Microsoft Windows so marka haddii aad u baahan tahay in kuwa aad leedahay aad geysatid oo aad meesha aad soo dhigatid hadhowna ay shaashada ay kasoo muuqdaan browse aad dhahaysaa then fileska ay kugu jiraan pictureskaas ee hadhow meeshaan soo saari kartaa so what if I'm having pictures marka haddii aan pictures rin ka waran then waxaa saaran kara slideshows oo ah color markaas iyagu isbedelaya so markaas aan ma haystaba color marka slideshows ah oo aan ugu talagalay lock screen-ka marka colorsna qaybtan waa colorada haddii aad baahan tahay color so marka meeshan waa colorada taskbar-ka start button-ka ama qaybtan start-ka ay soo fuulaan waxyaabaha yani muhiimka ama fileska computerka sidoo kale meeshan waa marka application aad soo furtid applicationka colorka uu yeelanayo titleka application colorka uu yeelanayo ayaad bartaan yani ka samayn kartaa meel kale loo yaqaano waxaa jirta meel kale loo yaqaano action center iyadana waxay la mid tahay saddexdan marka colorada ay kuwa qaataan ayay iyadana qaadataa so marka colorkan buluug aad doortay haddaad rabaa bedeli karaa waxaa ku bedeli karaa tusaale ahaan yellow so marka yellow haddii aan ku bedelo marka maxaa isbedelaya markaas okay waxa isbedel wax kale maa fiir meelahan waa isbedeleen colorada waxay noqdeen yellow bay noqdeen so then meesha waxay noqotay yani title part-ka colorka uu leeyahay waa yellow bay noqotay meeshan so yellow marka next noqonaysaa then marka blue waa yani waa colorkan waa jeclahay so then blue ayaan ka dhiganaya okay marka so marka meeshan يعني waxaad ka hagaajin kartaa background colorka uu yeelanayo bahalkii applicationka markaa soo furtid iyo qaybtan starti then meeshan waa lock screen key so colorka inaan bedelo then so next thing ama waxa kale oo aan samayn lahayn ayaa wuxuu yahay in aan furno shaashada fara badan so hadda waxaan haystaa tusaale shaashada application ma hadda lacag furayaa marka waxaan rabaa marka inaan ku tusiyo shaashadan waxa yaala marka aan shaashadka marka aan furto in aysan isku mid noqon doonin so marka hadda waxa ay furan waa Word Microsoft Word then marka waxaan taabanayaa shortcut-ka ah Windows D Control Window D okay so marka waa another desktop yani waa shaashad kale waa so marka shaashada marka waa yani waxaan u gudbay shaashada kale so marka waxaan awoodaa marka inaan sameysto shaashada fara badan
marka sidaas darteed marka waxaan sameynayaa markaad inaan dib u noqdo oo shaashadii marka hore aan dib u noqdo waxaan taabanayaa window control windows left arrow. Okay, then waxaan dib u soo laabtay marka shaashadeedii caadi ahayd ama bilowgeed ama asaaska ahayd. Okay, so marka hadda waxaan u gudbaynaa marka in aan qarino dhammaan faalasha ama faalashaan ama maxaa yiraahdaa applicationska yaala meeshaan. marka waxaan sameynaa meeshaan la yiraahdo blank desktop ayaan tagayaa, kadibna waxaan leeyahay view. So then marka meesha ugu dambeysa oo ah show desktop icons ayaa waxaan ka qaadayaa saxda. So now marka every icon ama icon kasta oo ii saarnaa shaashadeeda waa u qorsamo. marka si aan u soo celiyo isla meeshii ayaan tagayaa oo meeshii markii aan saxda aan ka qaaday ayaan soo saarayaa sax ama tig ayaan soo saarayaa. marka waxaa isoo noqday applicationskii ama iconskii shaashada desktopkii saarnaa. hagaag hadda waxaan u gudbaynaa marka in aan wada doorano ama qayb kamid ah aan doorto. marka waxaan sameynaa halkaan ba waxaan qabanayaa marka meel bannaan oo iyaga kamid ah ba waxaan qabanayaa left click anoo haya ayaan jiidayaa ilaa iyo inta aan rabo. marka linkan haddaan rabo waan dooran karaa, haddii aan rabo marka linkan dhan kurti waa dooran kartaa dhammaantood all of them waa dooran karaa. Okay, so marka adig ayaa ku xirantaa marka waxaa rabtay marka inaad dooratid dhammaantood waa dooran kartaa, qayb kamid ah haddii rabtid waa dooran kartaa. Okay, hagaag marka hadda waxaan gudbiyaa marka in application ama icon meesha saaran ama maxaa yiraahdaa file ama application aan delete gareeyo marka hore. so marka waxaan sameynaa marka waxaan isku dayayaa marka in aan delete aan dhaho iconkan. so marka dushiisa waxaan ku dulhayaa left click kasab waxaan rabaa inaad doortaan rabaa. markii aan doorto waxaa saaraya marka colorkaas baa la saarayaa oo highlightka ah, kuwa kale colorkaas ma saarna. markaas macnaheedu waxay tahay ku dooran yahay. markaas kadib waxaan dhahayaa right click. Okay, so right click marka aad taabatid waxaa kusoo baxaya menus ama fara badan. Okay, so marka waxaan tagayaa meeshaan delete optionkan ayaan dooranayaa. then marka waxaa leeyahay ma waxaa rabtaa in marka shaygan la delete gareynayo lagu rido recycle bin email yiraahdo. insha Allah waa gaari doonaa. Okay, marka waxaa leeyahay yes. marka haddii aan dhaho no macnaheedu waxay tahay si toos ha loo dhigo oo computerka si toos ha looga bixiyo. Okay, marka haddii aan rabo marka inaan soo celiyo si fudud waxaan taabanayaa shortcut-ka control z. hagaag marka hadda waa uu soo noqdo waa kan isla isaga. marka haddana waxaan marka hore waan dooranayaa, kadibna waxaan taabanayaa right click, kadibna waxaan tagayaa rename, maxaan ka bedelayaa magaca, waxaan u bedelayaa okay so marka hadda magacaheeda waa ka bedelay. hagaag waxaan taabanayaa markaas enter, then magaciisii marka waa la bedelay. so marka muuqaalka maanta halkaas ayuu inoogu egyahay. haddii aad ka heshay muuqaalka subscribe like inta waa adiga. marka fadlan waxaan idin sheegayaa in aan soo wadno koorsooyin fara badan oo ku saabsan cilmiga computerka qeybaha kala duwan. sidoo kale aynu soo turjumi doonaa video fara badan oo ku saabsan injineerada adduunka ugu caansan oo ka hadlaya ama ka hadla badan ama ka dooda cilmiga computerka qeybaha kala duwan, hadday noqoto hackingka, hadday noqoto programmingka, qeybaha muhiimka ah ee cilmiga computerka. insha Allah marka like insha Allah ha ka tagin subscribe na raacin aad inoo dhiirigeliso. mahadsanid.